يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما أحسنه. أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalada ee kala duwan ee ku xiran kanaalka xogta salafka, waxaan in leeyahay soo dhawaada, jazaakum allahu khayran. kelimadeenni galabta ku soo dhawaado. kelimadaas uu yahay ciwaankeeda alxuquuqu bayna zawjayni. labada qof oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosha iskugu daray ee wadaageen oo ilaahay isu nasiibay, xuquuqday isku leeyihiin. xuquuqdaasna walaalayaal insha allahu tacaala waxay u qaybsantaa 3 qaybood. xuquuq waa xuquuq mushtarag ah oo ninkana laga rabo, haweeneydana laga rabo, labadoodaba laga wada rabo. xuquuqna waa xuquuq ee ninka laga rabo oo haweeneydiisa ay ku leedahay ay ka rabto. xuquuqna waa xuquuq ninka u baahan yahay uu leeyahay oo haweeneyda laga rabo. saddexdaa xaq ayaa marka ama saddexdaa qaybood bay u kala qaybsantaa. galabta insha allah waxaan qaadan doonaa qaybta koobaad oo ah xaqu zawji calaa zawjatihi. ninka xaaskiisa xuquuqda uu ku leeyahay laga doonayo gabadha, aakhariina adduunna ay gabadhaas haddii ay ilaaliso ay ku badbaadaysa insha allahu tacaala. maadaama xuquuqdaas marka ay ballaaran tahay, dhowr fadhi insha allahu tacaala ay noo noqon doontaa. fadhigaana waa fadhigii koobaad wey. waxaa u asal ah xuquuqda ninka iyo xaaskiisa marka laga hadlayo qowluhu subxaanahu wa tacaala, wa alla uu leeyahy alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu ila aakhiri ilaaya. ilahay wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala ragga inay yihiin kuwo qawaamin u taagni badan oo u taagan dumarkii oo ayaga mas-uulka ah. laba sababoodna waa la sheegay oo ay mas-uul kaga yihiin oo bimacnaa qawaamada lagu siiyey. sabab koobaad waxaa weeyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala xagga abuuridda uu kala duway, sida ragga loo abuuray iyo xagga khalqigooda iyo xagga dumarku way ku kala duwan yihiin. macyaa waxyaalo badan baa laga wadaa xagga awoodda iyo jismiga jirkiisu u dhisan yahay wixii la mid ah. qodobka labaad waxaa weeyaan in maxaa la yidhaahaa ay nafaqeeyaan wa bimaa anfaqu min amwaalihim wey. marka sidaa daraaddeed ninka ayaa laga rabaa mas-uuliyadda saaran inuu dareemo uuna guto. ninkaas marka haddaba xaqa uu ku leeyahay haweeneydiisa maxay tahay, taasaan insha allahu tacaala ka bilaabaynaa. waxaan leenahay horta fa xaqu rajuli calaa zawjatihi cadiimun wa kabiirun. ninka xaqa uu ku leeyahay xaaskiisa aad iyo aad buu u weyn yahay. gabadha muslimadana waxaa laga rabaa inay sidaa u dareento. markii ninkaa lagugu mehriyo oo aad macnaha waxa weeyaan aad nolosha wada wadaagtaan ood ilaahay in kulmiyo subxaanahu wa tacaala, xaq aad iyo aad u weyn inaad ku fuulay, lagaana doonayo inaad ilaaliso, aakhari adduunna aad ku badbaadayso. gabarya muslimadda horta waa inaad dareento wey. sidaa daraaddeed baa nabigeena calayhi salatu salaam waxaa ka sugan isagoo dareensiinaya gabdhaha xaqa intuu la egyahay baa wuxuu yidhi haddii ninka jirkiisa meel ka mid ay boog ku taallo, kadibna ay gabadha boogtaas ay leefto oo carabkeeda ku leefto malaxdaas, xaqiisa ma ayna gudanin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. kama wado nabigu calayhi salatu salaam in gabdhihii nimankooda hadday jirkooda dhaawac i gaaro ama booga ka soo baxaan malaxda ha ka leefeeno, kama wado. laakiin wuxuu ka wadaa bimacnaa waa dareensiin wey. culayska ay leedahay ayuu dareensiinayaa. maaha siday dadka qaarkood iyo kuwa calmaaniyiinta iyo kuwa diin la-aanta iyo kuwa caqliga keliya diin ka dhigto ay u qaateen oo ah in nabigu calayhi salatu salaam uu gabdhaha ku leeyahay leefo, raggiina maxaa la yidhaha malaxdooda iyo boogahooda leefo uu leeyahay. maaha ee waa dhiirigelin weeyaan, ay dareensiin way xaqa intuu leegyahay. mar kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salatu salaam haddii aan fari lahay
in qof uu u sujuudo oo u foorarsado oo wejiga dhulka u dhigo haweenayda ayaan fari lahay inay ninkeeda u sujuudo. xadiid imaam tirmidi iyo ibn xibbaan iyo bayhaqi keyrka ay soo saareen. macnaheedu waxaa weeye qof inuu u sujuudo ma banaano, waxa loo sujuudo ilaahay wey subxaana wa tacaala. laakiin nebigu wuxuu dareensiinaya calayhi salaatu wasalaam xaqa gabadhaas uu ninkeeda ku leeyahay intuu la eg yahay iyo weyninka u qabo ayuu dareensiinaya. marka waxaan leenahay xaqa gabadha ninka muslimka uu ku leeyahay ama ninkeeda uu ku leeyahay waa min muujibaati dukhuuli ljanna. waxyaalaha gabadha inay jannada ay gasho oo janno u waajibto keeno ayay ka mid tahay. wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu salaam haweenayda hadday 5 salaadood tukuto, xadiidkii macnaha ibnu xibbaan iyo keyrka ay soo saareen, bisheeda ramadaankan ay soonto, xibinteeda farjiga iyo xibinteeda tarankan ay xumaanta iyo zinada ka ilaaliso, ninkeedana ay adeecday warkiisa maqasho, qiila laha udkhili ljannata min ayi abwaabiha shi'ti, waxaa lagu leeyahay jannada albaabyadeeda mid allah midkaa doonta ka gal. marka waxyaalaha jannada kuu sababa noqonayo waxaa ka mid ah in ninkaada aad adeecdo oo aad warkiisa maqasho ayaa ka mid ah. marka waxaan leenahay haddii ay xaaladda sidaa tahay, waxaa laga rabaa oo aad iyo aad macnaha u mudan inay dareento gabadha muslimadda ah ninkeeda xaqiisa inay garato, inay dareentaa laga rabaa oo dareenkaa qaado, oo wax badan ay u hilmaanto, oo wax badan oo culays oo haysta ay ugu tanaasusho, oo waxyaalo badan oon macno lahayn ay ka fogaato si ay u ilaaliso xaqa ninkeeda uu ku leeyahay. qodob koobaad oo laga rabo waxa way dhowr qodob aan ka soo qaadana. marka waxyaalaha tartiibaadka gabadha laga rabo, qodobka laga rabo waxa weeye koobaad an tudiicahu fima amaraha, ninkeeda wax allah wixii uu faro oo daaca ilaahay ah subxaanahu wa tacaala, ilaahay inuu raalli ka yahay, diinta ilaahayna aan khilaafsaneen, inay ku adeecdo oy maqashaa la rabaa. saxaabiga loo yaqaana xusein ibn almuxsin wuxuu warinayaa eedadii uu ka warinaya in gabadhaas ay tiri rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waalihi wasalam baan u tagay. nebigu markaan arkiba wuxuu igu yidhi bay tiri adaati zawjin anti, haweeney la qabo oo nin lamiyaa tahay. markaasaa waxay tiri qultu nacam, haa baan ku yidhi bay tiri rasuulka ilaahiyo sala allahu calayhi waalihi wasalam. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi xaggeed u joogtaa, macnaha seed isku tihiin, seed u aragtaa, meesha uu kaa joogo intay la eg tahay, agtaada macnaha qiimaha uu ku leeyahay intay la eg tahay, saasay ka dhigantay. markaasaa waxay tidhi maa aaluuhu ilaa maa cajastu canhu, xaqiisa kama gaabiyo intii tabartaydu waa ku dadaalaa ilaa wixin kari waayo mooyaane. dee wixii aad kari waysana ilaahay kuma basaarin subxaana wa tacaala, laakiin intii tabartaydu waa dadaala bay tiri. nebigu markaasu wuxuu ku yidhi calayhi salatu salaam fa kayfa anta lahu, mar kale uu ku soo celi fa innahu jannatuki wa naaruki, wuxuu ku yidhi in asaga waa jannadaada iyo naartaadi wey. xadiidkaasay imaamu nasaa'i iyo xaakim iyo bayhaqi, axmed ibn xambal keyrkood waa wariyeen. macnaheedu waxaa weeyaan haddii aad xaqiisa gudan waysa haddee naar baad ku mudanaysaa, haddii aad xaqiisa gudatana jannaad ku mudanaysaa. intaa un baa laga wadaa. marka gabadho waa inay ninkeeda wixii wanaag ay maqasho wey, waa inay ku adeecdo ku maqasho wey. xadiid kaloo nasaa-i keyrka ay soo saareen baa nebigu waxaa la weydiye calayhi salaatu wasalaam can khayri nnisaa, dumarka kuwa ugu khayrka badan ugu fiican maxay yihiin baa lihi rasuulka ilaahi. markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allatii tudiicuhu idaa amara wa tasuruhu idaa nadara wa taxfaduhu fii nafsiha wa maalihi. wuxuu yidhi waa midda haddii wax uu faro adeecdo oo maqasho oo warkiisa qaadato wey. waa midda haddii uu eego farax geliso, qaabka libiskeedo, akhlaaqdeedo, wanaaggeedo, soo dhoweynteedo, ninkeeda macnaa xanaanayntiisa, ka warqabkiisa, caruurta ilaalinteeda, wax oo dhan ba aad uga farxaya, iyo guriga ilaalintiisa aad ba u farxaya.
wa taxfaduhu fii nafsiha wa maalihi haddana ilaaliso nafteeda ilaaliso xumaanta iyo waxyaalaha akhlaaqda xunxun oo dhan nafteeda ka ilaaliso haddii ninkeeda uu joogayo hadduu maqan yahayba xaggan haddana maalkiisana ilaaliso xoolihiisa aana ku ciyaarin oo xoolaha u aragta ninkeeda uu leeyahay inay ayadu leedahay cidkii xigtana aysan jirin u aragto wey marka qodob koobaad oo laga rabo waxaa weye ninkeeda wuxuu faro inay ku adeecdo daacadaas haddaba waxaa laga rabaa inay noqonin mid shareecada islaamka khilaafsan wax kastood ninka ku faro ama aad kuugu yeero ama uu samey ku yiraho waa inaad u egto sharciga ilahay wuxuu ka qabo wixaad ka shakaysataa culimadu waa inaad weydiso wax shareecada ilahay khilaafsan ilahay kuugu caroonaya oo macsiya asaga lagu adeeci maayo calaa sabiili lmithaal tusaale camal haddii uu ku yidhaha macnaha rag waxaa jira dumarkooda ku yidhaha xijaabkaa iska dhig oo garbasaar qaado iyo wax jirkaada muujinayo ay markay gabadha gurigeeda joogta laga hadli maayo ee isaga la joogto markay banaanka suuqa aadi buu xijaabka u diidaya kuma adeecaysa xijaabka waa xijaab wax waajib oo ilaahay saari wey macsiyadaas lagu adeeci maa ninkaa qaar baa dumarkoodii salaada hataa u diidi qaar baa soonkii u diidi waajibka ahay qaar baa laga yaabaa gabadhii xilliga dhiiga caadada uu ka socdo xaaraamteed oo ilaahay yidhi factazilu nisaaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna gabadh dhiig qabto looma dhowaan karo ilaahay yidhi subxana wa tacala xaaraamteed in gabadhii uu ku qasbo xilligaa inuu u galmoodo inay ka ogolaato maaha in gabadha xagga dambe oo laga saxaroodo inuu ka isticmaalo ee uu ka codsado ama u faro oo sida macnaha kuwa qaarkood akhlaaqdan lehen ay ku kaceen inay ka ogolaato ma aha laakiin waxay ku adeecaysa gabadha waxaa weeyaan wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ay raalli ka yihin maxaa yidhi nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa daacata fi macsiyati illaahi inama daacatu fi lmacruuf adeecid ma jirto yidhi fi macsiyati illaahi ilahay wax lagu caasina layskuma adeeco ee waxa laysku adeeca maxay yihin inama daacatu fi lmacruuf wixii wanaag wey marka qodobkaana waa qodobka koobaad oo gabadha muslimadda laga raba inay ninkeeda ku adeecdo oy maqasho maqalkaasna asagoo ku xiran wixii shareecada ay ogoshahay ayaa marka qodobkaas intaa ayaan kaga baxaynaa qodobka labaad oo gabadha laga rabo waxaa weye an taqara fi lbeyt walaa takhruj ila biidnihi gabadha inay gurigeeda joogto ninkeeda inuu fasaxa mooyaane mar kalena ay banaanku bixin inay fasax ku baxdo mooyaane iyo ogaal iyo iska warqabid iyo tashi ay ku baxdo mooyaane haddii marka baahi keenaysa inay baxda aysa jirin sida gabadhi hadday soo adeeganayso haddii marka isbitaal ay xanuunsa isbitaal aadayso iyo wixii lamid hadday tacliin markaan ayna guriga ka heli karin ay gabadhi soo baranayso iyo waxyaalaha lamidkee haddii marka wax un keenaayo xaaje iyo baahi sharcigu uu fasaxaya haddaysa jirin gabadha waa inayna banaanka u bixin wey maxaa yeelay gabdhaha mu'minaadka ilahi wuxuu ku yidhi subxana wa tacaala ayadoo lagu halqabsanaya gabdhihii nebi maxamed calayhi salaam xaasaskiisa ahay waqarna fii buyuutikunna guryihiina ku sugnaada baa layidhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa kuwa jaahiliinta oon islaamka shaqo ku lahayn ee siday u banbaxaan oo banaanka uga baxaan oo xaaja-la-aan ay iska baxaan oo iska wareegaan oo wixii rabaan iska maraan ayagoo weliba quraxdooda muujinaya oo hataa jirkooda aan si fiican u qarinaynin oo dharkii sharciga u tirigalay aan qaadanaynin waxyaalaha kuwaas ay sameeyaan waxaa la yidhi ha samaynina sheikhulislaam ibn taymiya raximah llahu tacaala baa wuxuu leeyahay laa yaxilu lizawjati xaaska uma bannaano an takhruja min beytiha ila biidnihi inay gurigeeda ka baxdo in macnaha waxaa weeye ninkeeda uu fasaxo mooyaane wa idaa kharajat min beyti zawjiha ninkeeda hadday ka baxdo gurigiiso bigayri idnihi isagoon fasax siinin kaanat naashizatan mid macnaha naagshuddo ayay noqonaysaa caasiyatan lilaahi wa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisana caasisi wa mustaxiqatan lilcuquuba cuquuba mid mudanaysa ayay noqonaysaa oo ilaahay u caroonaya subxaanahu wa tacaala keligiina maa culimadoo dhan abaa sidaa yidhi marka qodobkaas gabdhaha weliba hadda zamankan xilligan joogo aad iyo aad bay arrintaa u sameeyaan inay iska baxaan inay iska socdaan ayagoo wax baahi ay u baxeen aan la garanaynin cid u fasaxdayna aysan la garanaynin
haddii uu ninka kala hadlo yidhaa walaalay waxa weye gurigaada ku nagaaba inay la dirirto, inay hawsha si kale u dhigto. bal qaarkood waxaa dhacaysa ninkoodii joogo oo guriga joogo oo aan hataa shaqo jirin oon meelna ku maqleen oo guriga dhex joogo inay iska baxdo ama ay meel iska aado oo asaga ay waxba ka weydirin, oy aroos iska aado oo maxaa la yidhahaa qaraaba salaam baan iska aada ay tidhaaho, ay tiraa macnaha maxaa la yidhaha meelahaasaan iska aadaya wixii lamid isagoon ciidan waxba ka weydinin, oo laga yaabay ninkii wax u adeegaya iyo wax la jooga midna aysa jirin ayaa dhacdoba. haddii hadhow hadal uu ka keenana haddee in la yidhaaho ninkan waaba nin aniga macnaha waxa weye iga soo horjoodo, waa nin aanin rabin, waa nin aan dantayda ka shaqaynaynin, in la yidhaaho oo hawshiiba meel kale markaa loo bedelo. arrintaana arrin sax maaha, arrin sax maaha. waxyaalaha dadka marka ku kallifin waxaa ka mid ah gabdhahaas ayagoo in badan oo ka mid ah shareecada wax badan ka aqoonin, haddana balaayo kale oo waxaa oo reer galbeed iyo balaayo ay wataan oo afkaar kala duwan wataan, qaarna aanba diinba rumaysnayn, qaarna diintoodiiba ka baxay ka insilaakhi, qaarna afkaar qaldan iyo waxyaalo meelo lagu soo qorqoro intay aqriyaan ku saamoobeen, ayaa qaar badanna ku kallifay gabdhihii inay waxyaalaha noocaas ku kacaan oo guryaha ka baxa, banaanka u baxa, halkaa aado inta badan ku qayliyo. maadaama waqti uu yeeryahay insha allahu tacaala fadhigan qeybta koowaad labadaas qodob iyo hordhaca yar ayaan insha allahu tacaala galabta kusoo qaadanaynaa, halka ayaan kasii wadi doonaa. hada wabillahi towfiiq, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.